kulanti waana wanaagsan khiyarta kala duwan ee ku xiran warbaahinta Libdo ku soo dhawaada muuqaalkan oo aan ku soo koobi doono xaaladda wadamada Suudaan iyo sidoo kale Itoobiya iyo isbarbardhig awoodeed ee ciidamada labadaasi dal waxa muddooyinkii ugu dambeysay si xoogaysanaya xiisadda u dhaxaysa dalalka Itoobiya iyo Suudaan kuwaasi oo isku haysta deegaano kamid xadka kala qaybiya labada dal kaasi oo muran xoogan uu ka taagan yahay isla markaana haatan ay socdaan isku dhacyo military kuwaasi oo inta badan ay Suudaan guul ka sheegatay mas'uuliyiinta labada dal ayaa hore warbaahinta iskugu mariyay eedeymo iyo hadallo kulul dagaalkii ugu dambeeyayna waxa la soo sheegay in ciidamada Itoobiya uu ka soo gaaray khasaare badan isla markaana laga awood roonaaday warbixintani waxaanu ku eegi doonaa iskuna barbardhigi doonaa awoodda ciidamada labadaasi dal waa Suudaan iyo Itoobiya ee qiimeyntii ugu dambeysay ee la sameeyay sanadkani 2021 shabakada ka faaloota arrimaha militariga caalamka ee magaceeda la yiraahdo Global Firepower ayaa sanadkan soo saartay liiska 35 wadan oo ku yaala qaaradda Afrika kuwaasi oo ay ku samaysay qiimeyn dhinaca awoodda militariga Itoobiya waxay liiskaasi ka gashay kaalinta 6aad halka Suudaan ay ka gashay kaalinta 10aad taasi oo muujinaysa in dhanka awoodda militari ahaan ay awood badan tahay Itoobiya inkastoo ay jiraan dagaalo qaraar oo ay gashay aakhirkii sanadkii hore iyo horaanta sanadkani kaasi oo weeqay awoodda ciidan ee dhinacyada sanadda militariga kadib weerarkii ay qaadeen gobolka waqooyiga Tigrayga oo la aaminsan yahay inay ku dhinteen kumanaan kamid ah militariga Itoobiya isla markaana laga gubay hub iyo sanad military oo aad u badan marka si guud loo eego caalamka oo dhan liiska dalalka dunida ee awoodooda la qiimeeyay ayaa ah 138 dal waxay Itoobiya ka gashay kaalinta 6aad laakiin Suudaan waxay sanadkan 2021 ka gashay kaalinta 17aad Itoobiya waxay ka mid tahay 6 wadan ee ugu awoodda badan qaaradda Afrika marka laga soo tago wadamada kaalmaha ka horeeya ku jira ee Afrika kuwaasi oo kala ah Masar, Algeria, South Africa, Nigeria iyo sidoo kale wadanka Morocco sida ku xusan warbixintan uu diyaariyay wargeyska Global Firepower tirada shacabka Itoobiya ayuu ku qiyaasay 108,360,390 qof tirada dadka ku beeri kara ciidamada Itoobiya ayuu sidoo kale ku qiyaasay 40 milyan oo qof taasi oo ah 38% shacabka ku dhaqan dalkaasi tirada ciidamada militariga ee hadda shaqeeya ayaa sidoo kale lagu qiyaasay 162 oo askari sida laga soo xigtay warbixinta wargeyska Global mana jiraan ciidan kayd ah oo ay leedahay wadanka Itoobiya awoodda ciidamada cirka haddii aan eegno Itoobiya waxay leedahay 24 diyaaradaha dagaalka ah 9 kuwa sanada kala gudbiya 20 loogu talagalay tababarka ciidamada 33 diyaaradaha qumaatiga oo ka loo yaqaan helicopterka iyo sidoo kale 8 kale oo ah kuwa weerarada fuliya Itoobiya malaha diyaarada lagu talagalay howlgallada khaaska ah sida warbixintan lagu xusay dhinaca kale haddii aan eegno dhanka awoodda ciidamada dhulka Itoobiya ayaa ah 400 oo taangiyada gaadiidka ah 114 gawaarida gaashaamana 76 madaafiicda isku haga ah 650 madaafiicda la jiiday dagaalka iyo sidoo kale 183 qalabka lagu soo rido gantaalada haddii aan eegno dhinaca awoodda ciidamada badda wadanka Itoobiya ma laha awood dhinaca ciidanka badda sida uu xogtiisa ku soo bandhigay wargeyska sanad kasta qiimeeya awoodda military ee wadamada caalamka taasi waxay ka dhigan tahay in Itoobiya aanay lahayn ciidan kuwa badda ah iyo maraakiibtoona inkastoo sanadii ugu dambeeyay ay xukuumadda Abiy wadeen qorshe lagu dhisayo ciidamada badda Itoobiya balse aan la ogeyn halka ay ka howlgali doonaan maadaama wadankaasi aanu lahayn wax bada waa hagaag daawdir haddii intaasi ka nimaadno wadanka Itoobiya awoodda military ee Suudaan waxay qiimeyntan kaga soo baxday 10 wadan ee ugu awoodda badan qaaradda Afrika liiskan oo ay ku jiraan 35 dal oo kamid ah kuwa Afrika sida laga soo xigtay Global Firepower shacabka Suudaan guud ahaan tiradooda waxa uu ku qiyaasay 45 milyan 561,556 qof dadka awoodda u leh inay ku biiraan ciidamada qaranka Itoobiya dadka awoodda u leh inay ku biiraan ciidamada militariga qaranka Suudaan ayaa tiradooda waxa lagu sheegay 4,744,625 tiradaasi oo u dhiganta 3% kamid ah shacabka guud ee wadankaasi waxaana xogtani muujinaysaa in badiba shacabka ku dhaqan wadanka Suudaan ay diyaar u yihiin difaaca dalkooda dhinaca kale ciidamada kala duwan ee militariga wadanka Suudaan
ee sanadka 2021 qiimeynta lagu sameeyay ayaa waxaa tiradooda lagu sheegay 190,000 oo askari, kuwaasi oo 105,000 oo kamid ah askartaasi ay si toos ah u shaqo galaan isla markaana u sameyn karaan howlgallo caalami ah, halka 85,000 oo kamid ah askartani military ay kayd u yihiin wadanka Suudaan. sidoo kale warbixinta ayaa lagu sheegay in 20 kamid ah 190,000 ee ciidamada wadanka Suudaan ay yihiin askar booliis kuwaasi oo u tababaran qaabka militariga. awoodda ciidamada cirka wadankaasi haddii aan ku sii soconana, Suudaan waxay leedahay 45 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah, 38 kamid ah diyaaradahaasi waxay gaar u yihiin dhinaca fulinta weerarada, 22 diyaaradoodna waxa ay qaadaan sanada militariga gaadiid ahaana way u isticmaalaan ciidanku. 12 diyaaradood ay militariga Suudaan u adeegsadaan dhinaca tababarada diyaaradaha qumaadka oo kacay loo yaqaan helicopteriska. Suudaan waxa ay haysataa 73 diyaaradood, 43 kamid ah diyaaradahaasi helicopterta ayaan soo sheegnay ayaa ah kuwa loogu talagalay inay weerarada joogtada ah qaadaan ee dhinaca cirka. awoodda dhanka ciidanka dhulka wadanka Suudaan haddii aan eegnana, militariga Suudaan waxa ay leeyihiin 830 taangi, 450 gawaarida gaashaamana iyo 10 gantaal oo nooca isku haga. dhinaca ciidamada badda Suudaan waxa ay leedahay 18 markab oo 10 kamid ah ay yihiin kuwa kormeerka ku sameeya biyaha wadankaasi iyo xuduudaha oo wadankiisu dhanka badda kala wadaaga wadamada jaarka. dalka Suudaan waxa uu soo saaraa saliid sanad walba lagu qiyaasay 95,000 oo barmiil, hase yeeshee isla dalkaasi waxa uu sanadkiiba isticmaalaa saliid dhan 96,000 oo barmiil, taasi oo ka badan saliidda uu wadankaasi soo saaro. marka la isbarbar dhigo awoodda labada dal ee haatan xaaladooda darisnimo aanay wanaagsaneyn ayaa waxay muujinaysaa inay ku kala duwan yihiin dhanka awoodda, isla markaana ay ku kala duwan yihiin sidoo kale dhanka ciidamada tira ahaan. waxaana xusid mudan in Suudaan dhinaca ciidamada militariga tira ahaan ay ka badan tahay, halka sidoo kale ay wadanka Itoobiya ka badan yihiin dhanka sanada militariga qaarkood. balse hadda waxaan la qiyaasi karin cid ay gacan sarreyn karta haddii ay sii xoogeystaan dagaalada gooskooska ee haatan ciidamada labada dowladood ku dhexmaraya gobolka beeraleyda ee Al-Fashqa ee ay ku muraysan yihiin lahaanshihiisa wadamada Itoobiya iyo sidoo kale wadanka Suudaan. guud ahaan badda intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa warbixintaasi aan isbarbardhig ku sameynay ciidamada wadamada Suudaan iyo Itoobiya.